kulan wacan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena wararka isha sirdoonka iyo siyaasadda. Qodobada aad maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah jaamacadda carabta oo taageertay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Dowladda Masar oo qaramada midoobe ka dalbatay in ay soo farageliso khilaafka webiga Niil ee kala dhaxeeya Itoobiya. Madasha xisbiyada qaran oo dowladda dhexe ku eedeeyay inay ku fashilmantay inay qabato doorasho qof iyo cod ah. Iyo ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi oo sheegay in aan cidna ku soo xadgudbi karin dalkiisa. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan. U diyaar garoobo wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan. Dowladda Masar ayaa weydiisatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in si degdeg ah loo soo farageliyo dhismaha biyo xireenka ay dowladda Itoobiya ku sameynayso biyaha webiga Niil oo ay labada dowladood isku haystaan. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Masar ayaa lagu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay looga baahan yahay in si hoose loola socdo qorshaha ay xukuumadda Addis Ababa ku doonayso in ay ku sii wado dhismaha biyo xireenka webiga Niil iyadoo aan heshiis laga haynin. Wararku waxa intaa ku darayaan in dowladda Masar ay aaminsan tahay in natiijo aan la mahdin ay ka soo bixi karto haddii aan dib loo bilaabin wadahadallada xalka looga gaarayo biyo xireenka webiga Niil. Kulamo saddex geesood ah oo ay dhowr mar isku hor yimaadeen dowladaha Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa fashil ku dhamaaday kadib markii xal looga gaari waayay. Dowladda Itoobiya waxay dhawaan sheegtay in ay bisha soo socota dib u bilaabi doonto dhismaha biyo xireenka ay ka dhisayso xadka dhanka Suudaan, waxaana mashruucaasi ku kacaya lacag dhan 4.6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Biyo xireenkan webiga Niil ayaa dhismihiisu waxa uu socday 7 sano ee la soo dhaafay. Dowladda Masar ayaana durba ka biyo diiday, taasoo xataa mararka qaar la sheego in ay Masar doonayso in ay ku muuquniso awood ciidan, balse toddobaadyo ka hor dowladda Itoobiya ayaa gantaalaha difaaca iyo ciidamada militariga u daadguraysay dhanka ay biyaha ka dhisayso. Xiisadda labada dal ayaana kor u kacday, waxaana laga baqayaa in markasta oo labada dal ka dhex qarxi karo dagaal gacan ka hadal ah. Madasha xisbiyada qaran ayaa war-saxaafadeed ay ka soo saareen doorashada dalka ayaa waxay ku sheegeen walaac ay ka qabto sida dowladdu uga cagajiidayso qabashada doorasho waqtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu yahay. Waxay ugu baaqeen baarlamaanka in aysan ansixin xeerkii uu soo gudbiyay guddiga wadajirka ahaa ayna dalka iyo deegaanadaba u horseedayso qalalaase iyo deganaansho la'aan xalinteesu ay qaadan doonto muddo dheer. Madasha xisbiyada qaran ayaa waxay sheegtay in hoggaanka dowladda Soomaaliya uu ku fashilmay qabashada doorasho qof iyo cod ah, isla markaana loo baahan yahay in laga tashado waa siday hadalka u dhigeen. Waxay sidoo kale ka codsatay baarlamaanka Soomaaliya in uusan ansixin qodob ka mid ah kuwii ku xusnaa xeerka doorashooyinka qaranka oo abuuri kara xasilooni darro siyaasadeed. Waa tahay haddii aan qodobka halkaa kaga gudubno, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ah hogaamiyaha xisbiga Jubilee ayaa lagu wadaa in uu gudoomiyo kulan mooshin ah oo xildhibaanada baarlamaanka Kenya maalinta Isniinta ee soo socota, iyadoo lagu wado in xilka looga qaado Aadan Barre Ducaale. Ilaa 130 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka Kenya ayaa saxiixay qoraal kalsoonida ay uga laabanayaan hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale. Sida lagu daabacay mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalkani Kenya, Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto gobolka Waqooyi Bare, madaxweyne Kenyatta ayaa la gaarsiiyay qoraalka kalsooni kala laabashada ee Aadan Ducaale. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaana wada dib u habayn maamulka dalka Kenya gaar ahaan xisbiga uu hogaamiyo. Wararka ayaa waxay intaasi ku daray in madaxweyne Kenyatta uu isku shaandhayn ku sameeyo golihiisa wasiirada. Hindiya ayaa wacad ku martay awood ciidan in ay xadkeeda ku difaacayso kadib markii 20 askari ay kaga dileen ciidamada Shiinaha Isniintii la soo dhaafay. Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi waxa uu sheegay waqti xaadirkan in ay jirin ciidamo shisheeye oo ku sugan xadka Hindiya iyo dhul laga qabsaday toona. Dalka Shiinaha qasaaraha ka soo gaaray dagaalka ciidamada Hindiya ay la galeen wax war ah kama soo bixin tan iyo marka uu labada dal uu isku horimaadi ku dhex maray xadka Himalaya ee ay labada dal isku haystaan. Labada dal ee ku hubaysan hubka nuclear-ka ee waxgumaada ayaa midba midka kale ku soo eedeeyay inuu xadka ka soo tallaabay dagaalkana uu bilaabay. Hindiya waxay sheegtay in labada dhinacba uu khasaare ka soo gaaray dagaalkii dhawaan ku dhex maray dooxada Galwan ee xadka labada dal ku taala. Dowladaha Hindiya iyo Shiinaha ayaana isku haysta dooxada Galwan tan iyo 1972. Dagaalkii Isniinta ku dhex maray labada ciidan ayaana ahaa kii ugu khasaaraha badnaa muddo 45 sanadood ah, laakiin labada dal waxay hadda u muuqdaan in ay xiisadda dejinayaan oo ay doonayaan in looga baxo xal diblomaasiyadeed. Xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd ayaa soo dhaweeyay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee dhawaan uu martigeliyay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa dhambaal u diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana uu ku ammaanay dadaalkiisa ku aadan wadahadallada dib u bilowday ee Soomaaliya iyo Somaliland. Axmed Abulqeyd ayaa xaqiijiyay madaxweyne Farmaajo taageerada jaamacadda carabta ay la garab taagan tahay taageerada Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada dib u heshiisiinta, horumarka, nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya. sidoo kale waxa uu bogaadiyay dadaalka madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo gogasha uu u fidiyay waxaana uu muujiyay taageerada buuxda ee jaamacadda carabta u hayaan dadaal kasta oo lagu mira dhalin karo hanaanka wadahadallada Soomaaliya. Wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee dib uga bilowday dalka Jabuuti ayaa suuro geliyay in labada dhinac dib isugu soo laabtaan kadib sanado wadahadallada hakad ku jireen. Sidoo kale waxaa labada dhinac magacaabeen guddi farsamo oo ka xaajoonaya qodobada laga soo saaray warmurtiyeedka. Jaamacadda carabta oo ay Soomaaliya ku biirtay 70meeyadii ayaan ilaa iyo hadda wax gacan ah ka geysan dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. Beddelkeedna qaar ka mid ah xubnaha jaamacadda carabta ayaa farageliya siyaasadda dakhliga ee Soomaaliya. Haba ugu horeeyay Imaaraadka Carabta oo dekada Berbera kula wareegay si aysan dowladda Soomaaliya ogolayn, taasoo ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka soo horjeesteen. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay tan inta marka xiga dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.